maanta mawduucana kagama hadlayno Soomaali ma Carab ah mise balse waxaan ku falanqeyn doonaa dhowr qodob oo mudan qof kasta oo muwaadin mise Soomaali ah inuu isweydiiyo mise wax iska weydiiyo taariikhdiisa hore dibna u xusuusto. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay dadka walaalaha ah maxaa lagu gartaa, dadka dhiigga wadaago maxay iskugu hiilayaan, dadka wada dhashay ee isku dhiigga ah waxaa lagu yaqaanaa marka dhibaato culus qabsato midka kale inuu midka kale u soo gurmado. haddaba marka laga shidaal qaato cabkii Carab taariikhda ula dhaqantay Soomaalida waqtiyadii adkaa ee dhibaatada iyo sabanadii xumaa waxaa la garwaaqsan karaa oona si cad loo garan karaa in Soomaalidu aysan ab iyo isirtoona la wadaagin Carab. bal aan si kooban u guud marno dhowrka ugu muhiimsan dhacdooyinka sooyaalka. dabayaaqadii qarnigii 19aad gumeystayaashii Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo Xabashidii ay kala qaybsanayay isla markaana kala qoqobayay Soomaalida waxaa ku gacan siiyay suldaan Carbeed. hadimadii gumeysiga waxaa horseed u ahaa danaystayaal Carbeed ah. haddaba waxay Soomaalida u loogeen una luqun qabteen gumeystayaashii ku soo duulay geeyiga Soomaaliya. soo gelintii gumeystayaasha reer Yurub ka hor dalka Soomaaliya oo iska ahaa dad iska masaakiin xoolo dhaqato ah waxaa joogi jiray ciidamo Masaari ah iyo suldaan Zanzibari ah ee Suldaan Barqaash. labaduba waxay wakiil ka ahaayeen boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee waayahaasi hore guud ahaan dunida Islaamka kala socon jirtay korka kore kana maamuli jirtay dunida Islaamka. Masar oo xukumi jirtay gobolada waqooyi ee Berbera ilaa iyo Harar ayaa Khaliif Ismaaciil Baash oo ah hogaamiyihii Masar wuxuu 1886 ciidamadii joogay Soomaaliya kala baxay dalka iyadoon loo digin Soomaalida si ay isu difaacaan. Masaaridii oo bixitaankeedu degdeg iyo kedis ahaan wuxuu la ahaa shaki dhaliyay tuhun loo turjumay baaqsi dadban gumeystayaasha loogu dabiyay sababtoo ah isla markiiba waxaa bedelay Xabashida oo qabsatay Harar iskuna ballaarisay dhulkii Soomaalida degto siiba nawaaxiga gobolkaas Harar. sidoo kale Ingiriiska wuxuu degay Buulaxaar iyo Berbera oo ahaa meelihii ciidankii Masaarida isaga baxeen. Khaliif Ismaaciil oo ahaa baashihii Masaarida waxaa ka hagardaamo badnaa Saciid Barqaash bin Taymur oo ah Cumaani suldaan ka ahaan jiray jasiiradda Zanzibar. isna wuxuu xukumi jiray gobolada koonfur ee ku teedsan badweynta Hindiya. Saciid Barqaash wuxuu heshiisyo kala duwan la galay oo isugu jiray iib iyo kiro xeebaha koonfurta ugu hibeeyay dhowr hay-adood oo gumeystayaashu wakiil ka ahaa waxaana ka mid ah Ebeco oo ah shirkad Ingiriis ah oo suldaanku ka kireeyay gobolka Jubbaland. wuxuu kaloo heshiis la galay Flornadi Company oo ah company Talyaani ah oo markii hore 12 bishii 8aad 1892 laga kireeyay gobolka Banaadir balse mar kale 13 bishii 1aad 1905 Suldaan Barqaash wuxuu Flornadi Company ugu iibiyay gobolka Banaadir lacag dhan 144,000 oo sterling ah. beeca dhexmaray Barqaash iyo Flornadi wuxuu sababay in koonfurta Soomaaliya noqoto maxmiyad Talyaaniga gumeysto maxaa yeelay 1 bishii 5aad 1905 ayaa Louis Mercatelli oo ahaa barasaabkii u horeeyay ee gumeystuhu Talyaaniga u soo bedelay koonfurta. dagaalkii labaad ee dunida markuu dhamaaday ee la aasaasay Jumciyadda Qaramada Midoobay, afartii wadan ee dagaalka ku adkaaday Mareykanka, Ruushka, Ingiriiska iyo Faransiiska waxay ku heshiiyeen in dagaalka lagu jabiyay la horkeeno golaha ee Jumciyadda Qaramada Midoobay si go'aan looga gaaro aayaha dhulkii laga kiciyay Jarmalka, Talyaaniga iyo Jabaan oo ayagana ahaa xulufo kale. haddaba si loo dhaqangeliyo fikradaasi bishii Janaayo 1948 waxaa xamar booqasho ku yimid guddi xaqiiqo raadis ah oo ay soo direen afarta taagweyn ee Qaramada Midoobay. dabadeed waxay xog wareysi la yeesheen xisbiyo iyo ururadii dalka ka jiray, hogaamiyayaashii beelaha iyo jaaliyadihii shisheeye ee dalka ku noolaa. Carabta oo xilligaasi xamar ku lahayd jaaliyad ballaaran oo weliba hodan ah waxay si cad u hor joogsadeen in Soomaalida gobonnimo la siiyo. dibadbax ay gumeysiga Talyaaniga ku garab istaageen waxay ku heeseen Soomaali gobonnimo qaadata
waa dameer geeso yeesho. Taasina waxay ka caraysiisay Soomaalidii, waxaana xamar ka qarxay dagaalo dhiig ku daatay oo dhex maray jaaliyadii Carbeed iyo hogaamiyayaashii SYL ee ururkii gobonimo-doonka Soomaalida. Guddiga xaqiiqa raadinta oo la kulmay jawi cakiran waxay ku taliyeen in saddexdii dal ee Talyaanigu gumaysan jiray koonfurta Soomaaliya, Eritrea iyo Liibiya in la horgeeyo golaha guud ee Jamciyadda Qaramada Midoobay. Inkastoo Talyaaniga oo olole diblomaasiyadeed u galay sidii uu mar kale gacanta ugu dhigi lahaa koonfurta Soomaaliya, waxaa si kulul u diiday oo si kulul uga hor yimid hogaamiyihii halgamayaashii Soomaaliyeed Mudane Cabdullaahi Ciise Maxamed. Ergadii SYL u dirtay xarunta Jamciyadda Qaramada Midoobay dabcan waxay hiil iyo hooba ka sugayeen dhammaan wadamada muslimka oo carabtu hormuud ka ahayd. Sida ku qoran kutubada taariikhda, wakiilka dalka Bakistan Mudane Maxamed Safrullah Khan wuxuu si hagar la'aan ah ugu hiiliyey qadiyadda Soomaaliya, wuxuuna si aan gabasho lahayn ula saftay ergadii SYL. Hase yeeshee, wakiiladii wadamada Carbeed u joogay Jamciyadda Qaramada Midoobay waxay ku dadaaleen kuna gorgortameen in saddexda waaxood ee waagaasi Liibiya u qaybsaneed la mideeyo, xorriyadana la siiyo. Ayaan daro, wakiiladii carabtu waxay dhabarka u jeediyeen dhagahana ka furaysteen habarwacashadii ergadii SYL ay carab. Raggii ka socday gobonimo-doonka Soomaalida iyo Eritrea waxay la kulmeen hungo maran iyo hagar Carbeed. doodihii ka dhacay Jamciyadda Qaramada Midoobay ee lagu lafaguray waayaha wadamada Talyaaniga gumaysan jiray waxay ku dhamaadeen sida tan: in Liibiya oo midaysan xorriyad buuxda la siiyo. Waa mid ay Carabi ku doodaysay oo halgamayaashii Soomaaliyeed kaga furaysatay dhagaha kagana xiratay albaabada. In Eritrea hab federaali ah loo raaciyo xabashida. In koonfurta Soomaaliya hab wasaayad ah muddo 10 sano ah Talyaaniga loogu dhiibo, maadaama xorriyad-gaarsiinta Soomaalida muddo 10 sano ah ammaano looga dhigay looguna dhiibay Talyaaniga. Erge u dhalatay Masar, Filibiin iyo Colombia ayaa loo xil saaray habsami u socodka hirgelinta hawsha wasaayadda. Walow ergeygii Masar ee Maxamed Kamaaludiin Saalax uu kaalin firfircoon ka qaatay himiladii halgankii SYL ilaa aakhirkii uu ku waayay naftiisa qaaliga ahayd. 16 bishii Afraad 1957 ayaa shirqool gumeysiga u maleegay lagu dilay, laakiin waxtar kale oo micno leh lagama helin wadamada Carbeed. Marxaladaha qalifan iyo mushkiladaha aafooyinka ka dhasha ficilada waxay kala saaraan oo lagu kala bartaa sokeeyaha iyo shisheeyaha, saaxiibka iyo cadowga, nacabka iyo nasteexa.